aad ayaan u faa'iidaa maalinkaas xasiloonina waan dareemaa soo dhawow inta aynan u guda galin mowduuca aynu ka hadlayno fadlan subscribe sar channelkeena dunida maanta wad mahadsantahay nin ayaa soo galay meel qudaarta lagu iibiyo si uu u adeegto ninkii meesha joogay ee dukaanlaha ahaa ayuu ku yiri muuska ama mooska meeqa ayaad iibinaysaa ninkii ganacsadaha ahaa ayaa ku yiri 6 riyaal tufaaxana 10 riyaal ayaa lagu yiri xilligaas la joogo waxa goobta soo gashay haweeney u yaqaano ninka ganacsadaha ah waliba xaafadda ku nool waxay ku dhahday moos ayaan rabaa ama muus waxa uu ku yiri waa 3 riyaal tufaaxana ayay ku soo celisay waxa uu ku yiri 5 riyaal haweeneydii ayaa intaa kadib alla u mahadnaqday oo tiri alxamdulillah maadaama qudaarta ay sidaas si raqiis u tahay ninkii kale ee qudaarta lacagta badan looga sheegay ayaa wajigiisii isbedelay xanaaq dartiis balse ninkii ganacsadaha ahaa ayaa ku yiri in yar isug markii ay haweeneydii ka baxday dukaanka iyada oo faraxsan oo dhahaysa carruurteyda maanta wax fiican ayay cunayaan labada nin waxa ay sii maqlayeen sida ay haweeneydaasi alla ugu mahadnaqaysay ninkii ganacsadaha ahaa ayaa ku yiri ninkii la joogay wallahi in aanan wadin wax dulsaar ah oo aanan ka doonin balse haweeneydan waa hooyo leh 4 carruur ah oo agoon ah waxayna diidaa in loo kaalmeeyo oo la caawiyo mar walba aan damco in aan caawiyo way iga diidaa waxaan dhowr jeer ku fakaray qaabka aan u caawin lahaa mana helin awood aan tan ahayn inaan ku caawin karo in aan hoos ugu dhigo sicirka qudaarta aan ka iibsanayo waxaan rabaa in aan dareensiiyo in aysan qofna u baahan aniga waxaan rabaa in aan qeyr shaqaysto ganacsiga sidaan ahna alla dartiis ayaan u jeclahay waxaan jeclahay iyada iyo kuwa la midka ahba in aan caawiyo ganacsadihii oo sheekada sii waday ayaa yiri haweeneydan isbuuci hal mar ayay ii timaadaa 3 goor ayuu dhaartay waxa uu ku yiri markii ay haweeneydan ii timaado ay wax iga iibsato aad ayaan u faa'iidaa maalinkaas xasiloonina waan dareemaa ninkii kale intuu isku ooyay ayuu madaxa ganacsadihii ka dhunkooday kadib markii uu ku qancay mowqifkiisa ogow walaal waxa imaanaysa maalin wax walba oo qurxoon oo wanaagsan aad sameysay lagu hor keeni doono laguna abaal marin doono amalkaaga oo jibaaran waad ku mahadsantahay daawashada iyo dhageysiga mowduucan fadlan saaxiibada la sii wadaag